maamulka Muqdisho ka dhisan wuxuu khatar ku yahay jiritaanka ummadda Soomaaliyeed oo dhan cadeynteedana waan ku siinaya fadlan muuqaal ka share gare gaarsii qof kasta oo Soomaaliyeed marka laga tago jamhuuriyadda dhawaan la aqoonsaday Somaliland maamulka Muqdisho ka dhisan wuxuu khatar ku yahay Soomaali meel kasta joogtaba Somaliland waxa ku kacsanayd laascaanood oo gobolka Sool qayb kamid ah ama Sool bari koonfurta Soomaaliya waxay aad iyo aad ugu taageeri jireen oo caawin jireen dadkii ka dagaalamay bariga Sool ee Somaliland dad nabada barwaaqo ku nool Somaliland ayaabay ku kalifeen inay barakacaan qaxaan hantidoodu lunto intaas oo qofna ku nafwaayaan markii bariga Sool waxa soo mashaqay ka dhacday Somaliland ka go'ay waxa isla barigii Sool doonaan inay u isticmaalaan inay ka weeraraan Puntland oo ahayd maamulada Soomaaliya ama federaalka hoostaga shanta maamulka ugu nabdoon ee ugu fiican oo ugu horumarka badan mar labaad xasuusiye maamulka koonfureed ee koonfurta Soomaaliya ama Muqdisho wuxuu had iyo jeer ka xun yahay jiritaanka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed ee ma aha mid u danaynaya sidii loo mideyn lahaa ummadan wuxuu Somaliland ka gooyay haddaan tusaalayaasha san horeydu ku sheegay koonfurta Soomaaliya waxay Somaliland ka gooysay gobolkii laascaanood ama Sool bari Puntland Allahumma salli ala Muhammad ay ahaayeen dadka bariga Sool dadka isku xigaan waxay maamulka koonfureed bilaabeen inay ka weeraraan isla maamulkii Sool ee walaalaha ay dhulkooda reer Sool arintaas kama garan walaaladood reer Puntland oo ahaa dadkii ugu horeeyay isku tashtay midnimadooda iyo nabadgelyadooda ka shaqeeyay waxa la doonayaa maanta in laga baabiyo isla gudihii Sool ee walaalaha ay maamulkan aan ogolayn midnimada shacabka iyo walaaltinimada shacabka Soomaaliyeed ee gobolada gooni-goosatada taageeraya koonfureed wuxuu mar labaad istaaray siyaasad la yiraahdo Awdal State reer awdal oo ognahay barwaaqada iyo bashbashka iyo waxbarashada iyo caafimaadkooda ay haystaan in nabadgelyadooda kulana nool dadkooda reer Somaliland waxa uu istaareen wax sidii bariga Sool kale ay doonayaan inay u sameeyaan maamul gaar ah oo ka sii go'ay Somaliland wadadkii oran jiray midnimo Soomaaliyeed baan rabnaa midnimadii Somaliland waxay doonaan inay ka sii jaraan gobolkii awdal ah gobolkii labaad iyadoo arintaas uga dhaqdhaqaaqi lahayd waxay haddana dib uga sii daba istaareen wax kale oo awdal ka sii go'aya oo ay bixiyeen Guben State oo beesha Ciise ah arintaas waxay cadeynaysaa koonfurta Soomaaliya ama magaalada Muqdisho wax midnimo leeyahay inay weligeedba ka shaqeynayeen ay ka shaqeyn lahayd sidii u sii kala jari leed beelaha walaalaha ah ee deegaanada wada leh Puntland marka waqooyi laga soo jeesto waxay u jeesan doonaan xagga iyo Puntland oo ay sameyn doonaan inay leelikasaha lacag u diraan leelikasaha intay lacag u diraan inay yiraahdaan idinkuna ka go'a Puntland waxaad samaysataan xariir laantii la sheegi jiray waxaad garateen maaha markay haddana Puntland ka gooyaan Xariirland waxay ka gooyn doonaan iyagoo lacag u diraya boosaasayada shiishihii taas waxay ku cadeynaysaa maamulka isku sheegaya jamhuuriyadda Soomaaliya ee reer koonfurku inaanay arkiba karin meel nabadgelyo ka jirto oo isku tashanayo dad isku tashtayo wax isku geystay oo maamul intay sameysteen magac yeeshay nimanka waxa sameynaya ee lacagta awdal ku bixinaya Puntland ku bixinaya awdal ku bixinaya ma gaari karaan magaalada Aadan Yabaal ama Allahumma salli ala Muhammad gobolka Shabeellaha hoose oo u jira 30 kilomitir magaalada Muqdisho shaqadoodu waxa weeye kala furfurid nabadgelyo darro ku abuurid iyo go'goyn loo geysanayo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iga badhanba